بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه. dhammaan wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale iyo bahda warbaahinta maanta oo bishu ay afar ahayd waxaa halkan ka dhacay shirarkii soo socday mid ka mid ah sidaad ogtihiin wuxuu soo bilowday 25 bishii hore kadibna waxa ay bishan maarso ayaa lagu leeyahay kii saddexaadna wuxuu ahaa kii maanta dhacay oo bisha afar ahayd shirarkaas waxay ka dambeeyeen baaqi prime minister uu soo saaray nabadeed uu soo saaray ku saabsanaa in wada hadal la galo guulo waaweyn ayaa laga soo hooyay wada hadaladaas labadii wareegoo hore waxyaabaha laga soo hooyay waxaa kamid ah in dhacday 19 February laga heshiiyey guddi loo saaray mudaharaadkii iyo arrimihiisa laga wada hadlay sidaad ogtihiin dowladdu waxay qabtay in mudaharaad xilligan uusan ku habboonayn arrimaha la xiriira caafimaadka iyo amniga awgeed ha yeeshee murashaxiintu waxay ku adkaysteen in la qabto mudaharaad dowladdu iyadoo tixgelinaysa wada hadallada iyo isfahamka siyaasadda kana soo horjeeda wax kasta oo colaad iyo tension abuuray waxay ogolaatay in mudaharaadka la qabto kadibna waxaa loo gudbay xaggee lagu qabanayo qaabkee wada hadal la galay haddana mudaharaadkii waxa ay dhaheen waxaan annagu dowladdu waxay soo jeedisay goobo fara badan oo amnigeed la sugi karo oo caafimaad ahaan la ilaalin karo laakiin waxay ku adkaysteen in aysan diyaar u ahayn inay ku qabtaan mudaharaad meel aan ahayn meesha la yidhaahdo daljirka haddana mar kale dowladdu arrinkaas way fulisay waxaa lagu raacay daljirka inuu qabto waxaa loo saaray guddi farsamo oo ka shaqeeya arrimahaas oo maantana fadhi yeeshay laakiin farsamadeedii arrimaheeda waa lagu jiraa weli lama soo dhamaystirin qaabka ay ku dhici doontana waa wax farsamo ku jira amniga sida loo sugayo caafimaad ahaan qaabkaas waxyaabaha marka laga soo gudbo caawa shirka loo fadhiyo waxaa ku saabsanaa codsi ay soo gudbiyeen murashaxiintu oo ku saabsan in lagu daro madasha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ka dhexaysa inay fadhigaas ka qayb galaan oo waxyaabihii lagu heshiiyey 17 September iyo 16 hadeer Maydhabo in ay rabaan fadhiyadaas inay ka qayb galaan oo madasha lagu geeyo arrinkaasi sida aad ogtihiin saacada dheer ayuu qaatay arrin ay dowladdu ama xukuumaddu mas'uul ka tahayna ma aha waa arrin u yaala maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo haddii la furayo iyo haddii aan la furayn iyo haddii dad lagu beerinayo haddii kale go-aankeeda aysan dowladdu aysan xukuumaddu iska lahayn marka arrintaasi ayada ayaa waqtigaa ku qaadatay ayaguna ku adkaysteen ilaa in la furo xukuumaddana iyo prime minister hogaaminayna ay sheegeen inaysan hawshaasi hawl u taalla xukuumadda aysan ahayn taladeeduna aysan ka go'in horena aysan u dhicin in la furo madalihii ka horreeyey tanuna in furitaankeedu aysan xukuumaddu shaqo ku lahayn arrinkaas ayaa runtii daaha faraha badan keenay si kasta waxaa la isugu dayey oo prime ministerku dulqaad xoog oo muujiyey waad dareemi kartaan caawa 8 baan ka fadhiisana ama 2 saac sida loo yaqaan haddana waxay maraysaa saacad adugu 3 habeenimo ama 9 saac habeenimo waa saacado dheer oo ilaa 7 saacadood ah intaasina waxaa la isku dayay in laga qanciyo in madashaas furitaankeedu uusan hawl xukuumaddu leedahay aysan ahayn laakiin xukuumaddu ay diyaar u tahay wixii ku saabsan amniga doorashooyinka in la qabto waxyaabaha uga aadan ee xukuumadda waajibaadkeeda ah inay diyaar u tahay sidaad ogtihiin doorashada qabashadeeda xukuumaddu waxa waaye waxyaabaha ay ka dhigayso hortiminta ay siinayso hadda kor waa la socotaan prime ministerku inuu yiri asagoo la taagan madaxweynaha dowladda qaarkood inuu yiri inay bilaabato inuu jeclaa inuu safar u galo ha yeeshee bilaabashada doorashada iyo wax ka qabadkeedu waa hawl aan xukuumaddu runtii aysan caqabad ku ahayn oo meel kale laga caqabadeynayo taasna waxaan filayaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan aad iyo aad ay u yihiin intaa waxaa dheer
baaqii bare minister gujeeriyey ee wadahadalaan ku furmeen weli waa sidiisii gogosha waa fidsan tahay wadahadal siyaasadeedna sidiisa hal maalin uma goyn karo wareegyo badan uu leeyahay dulqaad iyo sal adeeg fara badan buu u baahan yahay xukuumaddu waxay diyaar u tahay in ay u dulqaadato loo sal adeego waqti la siiyo wixii wareeg lagu xallin waayo wareegyo kale loo gudbo ayay diyaar u tahay ma aaminsanin annagu in wadahadalku sidaa ku xirmay waxaan aaminsannahay in fursada weli jiraan lana sii wadi karo ayna tahay sida siyaasaddu wax u baahan sabar iyo dulqaad iyo sal adeeg dheer oo aysan ahayn wax hal habeenka la isu yimaado isla habeenkaa la go-aamin karo marka kale waxaan ku baaqaynaa murashaxiinta iyo inta kale oo siyaasadda danaynaysa in xukuumadda albaabeeda furan yihiin wadahadalkii halkiisa laga ambaqaadi karo waxyaabihii laysku gefe la sii wadi karo waxyaabihii bislayn u baahan oo weli aan la bislayn la bislayn karo ayaan ugu baaqaynaa bulshada soomaaliyeed oo runtii ku diirsatay wadahadalka iyo baaqa bare ministerka iyo dowladda guud ahaan iyo wadahadal ku diirsatayn waxaan markaa ugu baaqaynaa in ay cid alla ciddii wadahadalka ka muujisa cagajiid inay culays soo saaraan lagu soo dhiirigeliyo mar labaad iyo mar saddexaad waxa waaye waxaan ku soo celinaynaa wadahadalka iyo baaqa nabadda ee bare ministerku hogaaminayo inuu sidiisi yahay habeen iyo maalin aan u dhafrayno gacmaheenu furan yihiin wax kasta oo danta soomaaliyeed ku jirtani si wadahadal ah si degan ismaqal laab furan iyo qalbi furan iyo maskax furan inaan ku soo dhaweynayno aad iyo aad u mahadsantihiin Terima kasih.